السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السود هذا ملبو دفع دوني جوكتان channel كذا ونسمع عبد النو ميعي وعبد النو حسين سود هذا صاحب إن شاء الله ما أنت مقالك حارة صاحب إننا كوكافر جريو كلسوني ذا إيه وحيابه كعجب عنده. يلا بدن إيه مقال بدن وأكون مقشي كلسوني ذا دس كلسوني ذا حوجي نرجع إسكدك حنية إسكرادي وحيابه نوعاسة. لكن مرة كقار هدي كلسوني ذا بدأ توحى معقولة أما من الريسك عاد هذا كلسوني من كوكلي واحد معقولة إني نولش قوة أتكاتو إن شاء الله تعالى مرة صاحب الحارة وما أنت أفر وحيابات وحوجنا كلسوني ذا وأنت تجابعهن أنا جسمي أديك إنك أنفعن لقي أبو وحى معقولة إن أنا نسكت تجابعهن لبدينا أو اسكو وده أنا مري كرين لكن أنا وحنكوسو كويا مقال كنا صاحب الأفر وحيابات وكحوجنا إن كلسوني ذا دستو قاسة كلسوني ذا نفد معناه سيلف كوميدس وحيابات لو يقام مرة بدنا مقالة كده وتقابك كلسوني لو دسوا لكن ولي وح معقولة بالناس لا ده هي تبوي إني حالة أنت كبحسن مهلي كرا وقف أما ومعناها كنولشي سوق عبري أما رود ما وقف بني آدم راعي وناني أنا مري كرا مثل مجرى الناس لا ده معقولة إن شاء الله وساد رادد أيام ما تجي على سنة مقال كنا كوسو بيأفر وحيابات وكعوين كان إن معناها شخصينا كلسوني هذا دستو أجي على سنة أنت مقال كان إن كوسو بيساد رادد هدي فضل هديات أمريكا كوات channel كوسودو ميعيقو عبد النو حسين سيدا كلا channel كوانونو أكاديمي channel صاحبي waxaan ku soo gudbinaa waxyaabo badan oo ay kamid tahay barashada website-ka sidoo kale muuqaal sameynta sidoo kale electric Facebook-ga iyo saaxiibayaal koorsooyin goos oo technology ku saabsan iyo wax walba oo technology ayaa channel-keena ka helaysa marka hadii aad tahay markaa kuwaad marka saaxiibayaal muuqaalka like garay sidoo kale channel-ka subscribe sa waxyaabaha kuwaad saaxiibayaal ee qofka bini'aadamka uu marka horeba inuu kalsooni leeyahay iyo inuusan kalsooni lahayn ama kalsooni naftiisa ku qabo ama inuusan ku qabin oo ku garan karo waxa kamid ah inuu qofka istijaabiyo waxa laga yaabaa inay jiraan waxyaabaad ka cabsanaysay ama dhankooda inaad aado ama inaad qabato ama in macnaha aad u dhaqaaqdo ka cabsanaysay inay jiraan baa suuragal ah waxyaabahaas waa waxyaabaha ugu habboon ee aad kalsoonidaada ku tijaabin lahayd haddii aadan maanta qaban haddii aadan maanta dhankooda u jeesan haddii aadan hal tilaabo dhankooda u qaadin markii aad dhimato inuu ruuxaantaada soo kacdo hawshaas kuuma qabanayso marka aad nooshahay ka sukooba inaad nooshahay ragnimada marka qaar waxay dhigtaa inaad istijaabiso waxaan inaad awoodo iyo in kale tusaale waxaad ka cabsanaysaa inaad dadka muuqaal aad u samayso oo hor fadhiisato oo wax u sheegto hadda kaamirada soo qaada mobilkaaga shido ama kaamiradaada shido kadibna waxa sheegi karta sheeg falcelinta ayaad arkaysaa markaas because waxa marka loo dhaqaaqo oo kaliya ayaa la arkaa reaction-ka dadka ka imaan laakiin haddii ay tahay aniga maxaan sheegi doonaa aniga maxaan qaban doonaa aniga maxaan soo gudbin doonaa haddii ay tahay weliga intaas kama dhamaan doonto saadaradeed waa sababta aan ku leeyahay marka horeba kalsoonida ka horeba bal istijaabi haddii kalsoonidaada ay sareyso waxaad ku dhiirinaysaa boqolkiiba wixii aad ka cabsanaysaa maanta inaad tijaabiso maxaa yeelay wax kasta oo laga cabsado wax kasta oo naftaada dabrin u ah ama qabanayo oo ku dhahay waxa ma qaban karto waxa ma sameyn karto waa internal problem waa dhibaatooyinka gudaha ka haysto haddii aad maanta qaban weydo waxaad maanta ka cabsanayso xilli kugu habboon oo aad qaban karta ma jiro waa sababtan ugu bilaabo marka kalsoonida ka horba istijaabi shaygaas aad maanta ka cabsanayso samey haddii wax barasho tahay haddii ay inay tahay inaad kubad ciyaartid haddii ay tahay inaad muuqaal samaysid yacni qof walba dhibaato gooni haysta marka waxyaabaad ka cabsanayso oo kalsoonida aad maanta ku muujin karta qabo sababtan ugu dhigay xeerka koowaad istijaabi inta markaa samayso oo aad tijaabadii samayso waxa macquul ah marka waa tijaabada inay ku shaqeyn weydo haddii tijaabada ku shaqeyn weydo taa kama dhigna weli in naftaada kalsooni ku qabin mararka qaar waxa macquul ah laba shay in macnaha kalsoonidaada ay inay guulaysto ay sabab waayeen waa mid koowaad waxaas qadar ahaan inay ku qorneen baa laga yaabaa tusaale haddii aad islahayd muuqaal dub in lagu qorin baa laga yaabaa oo codkaagii iyo dad iyo macnaha iyo adigaba ama aadan suitable ka ahayn oo qadar ahaan weligaaba ay ku qorneen inaad dad hor fadhiiso taas macnaha waa qadarka ilaahay oo waxaan ku qorneen ma qaban kartid waa mid labaad waxa marka koowaad ee aad sameynayso si qaldan baad u sameyn kartaa tusaale muuqaal dub baa lagu dhahay muuqaal xun baa soo gudbin kartaa ama qaab aan macnaha adigaba ahayn baad u hadli kartaa waa sababtan ku leeyahay marka xeerka labaad wuxuu dhigayaa in macnaha wixii aad tijaabisay aad ku celceliskaas waxa ama joogteyntaas waxa loo yaqaan consistency waxa ka caawinaysa in shaygaasi macnaha aad macnaha kala garato waxaan inuu adigu kugu habboon yahay iyo inuu macnaha ay kugu habboonin tusaale haddii qabashada shaygaas aad jeclaysato ama shaygaas inaad samayso markastaba aad u hungoodo ama aad nolol ahaan rabto inaad waxyaabahaas aad qabatid waxa loo yaqaan waxyaabaha ka caawina self esteem ka inay dhisaan haddii shaygan aad u hulowdid waa qabanaysaa haddii aad qabatidna kalsoonidaada ayaa ziyadayso marka waa sababtan xeerka labaad kaaga dhigay waxaan ku celceli waa midda saddexaad haddii qof aad tahay dadka riskiga ka cabsado
tusaale waxaa jirta waxyaabo qaar oo qofka bini'aadamka risk aan inuu ka cabsado waxaad u baahneed inaad gasho wax loo yaqaano trading tusaale cryptocurrency inaad lacag maalgashataad u baahneed taas haddii aad dhahdo bal ka waran kalsooni baan leeyahay bitcoin baa maalgashanaya oo lacagta dhan haystay bitcoin aad geliso saa daraadeedna coinkii aad maalgashatay oo dhulka imaada ka waran taas lama dhihi karo waa kalsooni riska qaada markaan ku leeyahay riskiga waa inaad ku dabaqdaa wax loo yaqaan aqoon wax aadan aqoon u lahayn wax aadan garanaynin wax macnaha hadii background-gooda ama fundamental-kooda aadan aqaanin haddii aad riski u qaadato wixii ka imaado adigaa sababteeda waa sidaa daraadeed riski qaado laakiin riskigaas aqoon ku dar tusaale wax baad ka cabsanaysaa inaad samayso waxaas aad ka cabsanayso inaad samayso ama aad gaarto marka hore asaasiyaadka soo baro haddii aad u baahan tahay inaad maal gashato coins oo lacag aad haysato oo aadna ka cabsanayso riski ku soo gaara marka horeba inta coinka ka horeysa waa inaad samaysaa waxa loo yaqaano asaasiyaadka inaad barataa haddii aad asaasiyaadka taqaano oo barashadii iyo waxyaabihii ay kuu fududaadaan taas waxaa imaanaysa marka wixii inaad riskooda qaadato because qof aqoon leh waxyaabaha uu sugo waa qalad mar walba oo shay riskiisa inaad qaadato aad u baahan tahay waa inaad garan kartaa waxaan reactionka ka imaanay dhibaato tusaale haddaa dhahdo bal ka waran baddaa baan isku tuurayaa riskigina waxay ugu dhacayaan fiirni haddaa dhahdo taas waxaa ka mid ah kind of jaahilnimo waa qaab ka mid ah jaahilnimada marka ma wanaagsano waxyaabaha qarnaa riski ku qaadid laakiin riskiga ka hor aqoonteeda waa inaad wax kasta lahataa waa sababtaan ku leeyahay riskiga aqoon ku dar oo ah xeerkeena afraad xeerkeena ugu dambeeya marka oo dadka ugu soo horeysayaan dadku waxay ku dhahan badanaa dhis kalsoonidaada laakiin aniga inaad kalsoonida dhisto waxaan ka dhigay midda ugu dambayso because waxaan ka horeysay marka hore inaad istijaabiso tijaabada aad ku celceliso kadibna riskiga aad qaadato marka ugu dambaysana aad kalsoonidaada dhisto intaas oo tijaabo ah ama saddexda xeer oo hore waxay ka caawinayaan in macnaha shakhsiyan horta isbarato bal waxaad ku fiican tahay waxaad ku wanaagsan tahay inaad riski qaadan karto inaad wax ku celcelin karto consistency leedahay in macnaha kalsoonidaada aad dhisi karto waxa ka horeeya asaasiyaadka kalsoonida lagu tijaabiyo marka horeba inaad barato markaad afartaa shay soo samayso ood istijaabiso oo aad ku celceliso sidoo kale aad riskiga qaadato marka ugu dambaysa xeerka afraad waa inaad kalsoonidaada dhisto haddii aad saddexdaa xeer ku soo guuleysatay saddexdaa xeer oo hore haddii aad noqotay mid dabaqay oo tijaabiyey oo is arkay oo ku celceliyey markaan kalsoonidaada si originally ah ama si maangal ah ayay u dhismaysaa maxaa yeelay wax kaa dhimanba ma jiraan marka kalsoonida dhisayso marka horeba kalsoonida inaad dhistaa ku bilaabin because foundationka kalsoonida lagu dhiso haddii uusan lahayn roadmap loo maro ama wadooyin loo maro ama meel looga hagaaga hadduusan lahayn kalsooniyaan dhisaa intaa meesha la soo istaagtid ayaad dhibaato kasta ku dhacaysaa marka xeerarkii aan kuu soo sheegay marka hore ka hormare oo adiga isbaro oo si fiican oo wanaagsan isu baro kadibna macnaha inaad kalsoonidaada dhista xeerka ugu dambeeya oo samaysa ha noqdo marka insha Allah tacaala waa rajaynayaa afarta xeer maanta inaad ka faa'iideysatay oo wax badan ay ku anfaceen xeerarkaas oo midka aniga apply gareeyo noloshaydan ku apply gareeyo oo wax kasto ka cabsada marka hore inaan barto kadibna aan macnaha kalsooni aan dib ka dhiso waxa inaan u baahanahay in kan haddii aad iga duwan tahay waad iga duwan tahay haddii aad ila mid tahay insha Allah soo tijaabi muuqaalkan iyo muuqaalka xigeentan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh soo dhawaada